hay'adda Save the Children iyo wasaaradda waxbarashada tacliinta sare iyo sayniska ee Somaliland oo ay ku wehelinayso dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa ardayda dugsiyada hoose dhexe ee degmada Gabiley u qabtay tartan aqooneed dhinaca cilmiga iyo tartanka kubadda cagta ah kaasi oo ujeedadiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa horumarinta waxbarashada gaar ahaan lagu dhiirigelinayo dhinaca gabdhaha tartankan ayaa waxa uu qayb ka yahay mashruuca horumarinta cilmiga waxaana maalgelinaya midowga Yurub isla markaasina waxa fulinaysa hay'adda Save the Children munaasabadani tartan aqooneedka oo ka dhacday hoolka dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa waxa ku tartamay dugsiyada kala ah Sheekh Maxamed Warsame New Gabiley iyo Sheekh Tusbaxle waxaana ku guuleystay dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Maxamed Warsame Save Children waxa weeyaan in ay maaragtay soo jeedno ama kor u qaadno waxbarashada gaar ahaan dhinaca maxaafada iyadoo la dhiirigelinayo dhammaan ardayda rag iyo gabdhaba in kor loo qaado waxbarashada loona soo jeedo hal iyo jeer marka barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijka horumarinta cilmiga la yidhaah ay maalgeliso European Union isla markaana hay'adda Save the Children iyo wasaaradda waxbarashadu ay fulinayaan su'aalood waxa yeeshay oo helay oo ku guuleysay dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Maxamed Warsame isagana kaalintii koowaad ee tartankani ku soo baxay maanta aad baan u hambalyeynaa ardayda iyo macallimiintooda dhammaan guud ahaan ardayda tartanka ka qaybgashay waan wada hambalyeynaa Sheekh Tusbaxle ardayda ka socotay iyo New Gabileyna mutasaawiyin bay noqdeen oo way silmeen misideed dhibcood bay heleen iyagana aad tartan aqooneedkan iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada dawladda hoose iyo hay'adda Save the Children waxa weeyaan waa kor u qaadida iyo tayeynta waxbarashada waxaan looga jeedaa si aad halkan uga tartantaa ardayda kale ee gobollada kale waxaan rajaynaynaa Gabiley sidii doorkii hore oo kale inay guula ka soo hayso waa markii ugu horeysay laba tiim isku dhacaya qalantaana ganacsiga magaalada Gabiley sidoo kale tartan kubadda cagta oo qayb ka ahaa mashruucaasi ayaa loo qabtay dugsiyada Sheekh Maxamed Warsame iyo New Gabiley waxaana guushu raacday New Gabiley aan kala hayn qabanqaabada ama qabashada maartay ciyaarta saaxiibtinimo ee ay yeesheen labada dugsi waxay tidii ciyaalka ama ardayda labada dugsi ay u yeelan lahaayeen isdhexgal saaxiibtinimo walaaltinimo aad iyo aad u mahadsan yahay hay'adda Save the Children iyo golaha deegaanka ee Gabiley oo hogaaminayo maayarku gacanta mugga leh ee mar walba ka wasaaradda ahaan nala barbar taagan yihiin waana ku mahadsan yahay assalaamu calaykum waxaan maamul ahaan u mahad celinaynaa hay'adda Save the Children oo runtii mashruucan uu la xiriiro mashruuca ay gobolka nagala wadaan qaybta waxbarashada hoose dhexe ee la yiraahdo horumarinta cilmiga aad baan hay'adda ugu mahad celinaynaa mashaariic kale oo caafimaadka runtii la xiriiro hay'addu nagala shaqeyso gobolkuna way jiraan mashruucii uu gunaanadkiisii yahay maanta barnaamijyadan oo isku lamaane la soo bandhigay runtii aad iyo aad baan hay'adda ugu mahad celinaynaa Mukhtaar Nuux Ibrahim Qoon Cable TV gobolka Gabiley